halkani waa Hirshabelle TV. wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabelle oo dadaalo badan ugu jirta runtii horumarinta howlaha wasaaradda waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka qayb galaysay shirka wadatashiga qorshe howl fulineedka wasaaradaha warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka federaalka shirkaas oo ay soo qabqaabtay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya waxaa si weyn looga hadlayay arrimaha ku saabsan istiraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo runtii soo socotay muddo aad u fog istiraatiijiyadaas oo istiraatiijiyad mid heer sare ah oo si qaran ay uga qayb qaadanayaan guud ahaan dowlad goboleedyada isla markaana diiradda lagu saarayo arrimaha amniga sidoo kale arrimaha bulshada dadka loogu wacyigelinayo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen nidaamka dawliga ee jira haddii ay ahaan lahaayeen nidaam dowlad goboleed iyo haddii ay ahaan lahayd dowladda Soomaaliya wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabelle waxay ka qayb gashay oo ay qayb ka ahayd xubnaha ka qayb galay kulankaas isaga waxaan ku heshiinay oo ku wada ballanay fulinta barnaamijkaas iyo sidoo kale in wada tashi laga sameeyo hannaanka ay u qayb gali karaan saxaafadda madax bannaan sidoo kale in barnaamijka isaga dowlad goboleedka Hirshabelle uu ka qaato kaalintiisa uu ku leeyahay hawshan iyada ah sidoo kale waxaa maalinta shalay ahayd furmay oo la qabtay shirka heerka sare ee deeq-bixiyaasha kaas oo deeq-bixiyaasha caalamka loogu bandhigayay istiraatiijiyadda wacyigelinta qaranka si ay dadaalkooda u waafajiyaan istiraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo ay hal meel u wada baxaan barnaamijkaas ujeedadiisu waxa waaye in fariimo wada jir ah ay ka baxaan guud ahaan warbaahinada dawliga ah ee heer federaal iyo heer state iyo sidoo kale saxaafadda madax bannaan barnaamijyadaas marka oo hadba noqon doona kuwa arrimaha bulshada quseeya iyo kuwa amniga quseeya waxay si toos ugu bixi doonaan tiifiyada dowlad goboleedyada iyo sidoo kale idaacadaha dawliga ah waxaa sidoo kale qayb ka noqon doona saxaafadda madax bannaan oo iyadana barnaamijkaas tabin doonto deeq-bixiyaasha caalamka waxay noo ballan qaadeen in wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay ka caawin doonaan ama ay ka kaashan doonaan fulinta barnaamijyadaas isaga ah isla markaana ay wixii taageero ama kaalmo ah oo ay hawshaas qosaysa ay ku soo wareejin doonaan wasaaradda warfaafinta barnaamijka isaga marka waa barnaamij muddo soo socday oo shirarkeedu ka dhaceen Muqdisho Garowe Kismaayo ilaa hadda gobolada dhan la tagi doono Hirshabelle ay qayb ka noqon doonto soo xiritaanka barnaamijka isaga ah oo wasaaradda warfaafinta qaranka ay wado marka arrintaas isaga waxaan rajaynaynaa in noqoto mid kaalin buuxda ka qaadato hannaanka istiraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo dadka loo wacyigeliyo arrimaha amniga sidoo kale arrimaha bulshada dhinaca kale wasaaradda waxay ugu jirtaa in qaabiso ama meel fiican marayo in la howlgeliyo telefishinka dowlad goboleedka Hirshabelle oo runtii meel aad u wanaagsan noo marayo waxaan rajaynaynaa in goor dhow telefishinka aan hawada soo gelino dadaal badan oo ku soo bixino kadib barnaamij isaga insha Allah waxaan rajaynaynaa in uu noqon doono mid farxad geliyo guud ahaan ganacsatada iyo guud ahaan shacabka iyo dadka ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle waxaan ka kaashanay dad khubaro ah haddana waxaan rajaynaynaa inaan sii horumarino oo aan badino istuudiyaasha xarumaha ay telefishinkaas oo ka howlgeli doono isla markaana aan u sameeyno shaqaalo dhammaystiran oo hawshaasi ka bixi karo wasaaradda warfaafinta dadaaladaas guud ay wado waxay kaashan doontaa state-ka iyo federaalka cid ay qosayso waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono insha Allah